Sida qof kastaaba dareemi karo, baahida raashinka iyo biyaha ayaa ah baahida aasaasiga ah ee uu qofku u baahan yahay noloshiisa. Balse dad yar oo aan badnayn ayaa fahmi kara baahida ay maskaxdu dareento inta uu qofku nool yahay. Dhammaan dadka xigmadda jecel ayaa isku raacsan haddii si hagaagsan aan loo daboolin baahida maskaxda, in noloshu aysan wax qiimo ah yeelanaynin. Si la mid ah sida loo koriyo jirka qofka, waa in loo barbaariyaa maskaxda bini'aadamka. Waxaan ogsoonahay in dadka dunida ku nool ay ku kala hormareen habka nolosha. Sababta ugu weyn ee dadku u kala hormareen ayaa lagu tilmaamaa sida loogu kala duwan yahay korinshaha maskaxda. Runtii lama soo koobi karo arrimaha badan ee maskaxdu u ooman tahay, balse muuqaalkan wuxuu si gaar ah u sharaxi doonaa mid ka mid ah baahida ugu daran maskaxdu dareento. Qaabka ugu fudud ee maskaxdu ku kori karto waa inay heshaa xog badan, waa inay urursataa macluumaad badan. Haddaba, baahida ugu daran ee maskaxda ayaa noqonaysa helidda macluumaad badan oo maskaxda u sahasha inay ururiso fikrado badan oo horumarin kara nolosha qofka iyo guud ahaan tan dadka, tan deegaanka, tan dalka iyo tan ummadahaba. Dad badan ayaa aaminsan in waxbarashadu tahay habka ugu fudud ee lagu dabooli karo baahida maskaxda, balse haddii si kale loo fiiriyo, waxbarashadu waxay qofka u sahlaysaa oo keliya sidii uu ku baran lahaa xirfad uu ku shaqaysto si uu u daboolo baahida aasaasiga ah ee jirka. Haddaba, lama dhihi karo qof kasta oo xirfad bartaa wuxuu ka qaangaaday maskaxda, waayo waxaan maalin kasta aragnaa kuwo badan oo aqoon-yahano lagu sheego oo ka garasho liita inanta yar ee waxaraha ku ilaalisa baadiyaha fog ee dalka, odayga geela ku jira hawdka sare. Markaas dad aqoon-yahano ah oo ka maskax hooseeya, ka garaad hooseeya ayaynu aragnaa. Waxaan soo ogaanay baahida ugu weyn ee ugu daran ee maskaxdu inay tahay helidda xog badan si loo kobciyo garashada qofka. Waxaa haddaba mudan in la isweydiiyo habka ugu fudud ee maskaxdu ku heli karto macluumaadka ay u baahan tahay. Dhammaan dadka lagu tilmaamo inay maskaxda ka qaangaadheen waxay ka sinnaayeen hal dabeecad oo malaha ay ka dhaxleen baahida maskaxdooda. Dabeecaddaas ayaa ah inay si waali ah u jeclaayeen wax akhriska waxa loo yaqaano. Runtii dadka dareema baahida maskaxda ama baahida wax akhriska ayaa ah dad fara ku tiris ah marka loo fiiriyo dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Waddamada iyo qaaradaha ay ku nool yihiin dadyowga dareema baahida wax akhriska waxaa ku badan ganacsiga buugaagta. Sidoo kale waxaa ku badan rugaha wax lagu akhriyo iyo madbacadaha lagu daabaco. Haddaba, waa sidee baahida maskaxda ama baahida wax akhriska waayahay marka loo kori karo sida ay haddaba Soomaalidu u nool yihiin meel kastoy joogaan. Bulshada Soomaalidu waxay ku caan tahay inay ku liitaan wax akhriska, taasoo laga dhaxlay kadib markii baahida maskaxda laga waayay dhaqanka guud ee Soomaalida. Sidoo kale, waxaan caan ku nahay dad jecel inay aad u raadiyaan war cusub, balse habka aan wararka u raadinayno ayaa ah qaab aad u dambeeya oo badi dadku ay ka hormareen. Tusaale ahaan, magaca warayaa oo Soomaalida looga yaqaan dalalka deriska ayaa ka turjumaya sida aan nahay dad ku nool hadalka oo jecel inay mar walba qaab maqal ku raadiyaan wax cusub. Inta aynaan ka hadlin haddaba faa'iidada laga heli karo wax akhriska, waxaan ku dhaqsanaynaa inaan sharaxno siyaabaha ay ku dhaqmaan dadka aan helin wax akhriska. Marka ugu horreysa, qofka ama dadka aan waxba akhrin waxay dhaqmaan sida carruurta marka la fiiriyo siday u fakiraan iyo weliba si u nool yihiin. Wax akhris la'aanta waxay garashada qofka dhaxal siisaa inuu addoon u noqdo habka ay u fikiraan dad asaga la mid ah. Akhristaa wuxuu ku wareeri karaa waxa aan ula jeedno addoon xagga garashada ah iyo fakarka ah. Jahliga qofka lama garan karo sidii uu u dhaqmi lahaa haddii uu wax baran lahaa. Waxaana laga yaabaa haddii uu helo iftiinka aqoonta inuu ku mami lahaa wax akhriska. Balse waxaan ka hadlaynaa dadka wax bartay balse dhaqanka ka dhigtay in wax loo sheegay ay iskula dhex wareegaan halkii ay wax ka akhrin lahaayeen. Qofba qofka uu ka akhris yar yahay wuxuu u jiraa dareere xagga fikirka ah, waana taas sababta Soomaalida meel kastoo ay joogaan ay ugu adag tahay sidii ay ku heli lahaayeen fikraddii ay ku badbaadin lahaayeen dalkooda burbursan muddada ka badan 30 sano. Soomaalida dadkooda wax qora aad looma yaqaano, balse waxaa caan ah dadka meelaha ka wacdiya ama idaacadaha ka gabya. Mar haddii aysan jirin baahi wax akhris, ma jiro sabab loo qiimeeyo
qof wax qora, dadkiina waxbaba qoridba laguma qiimeynayo. Qiimaha wax kasta waxay ku xiran tahay baahida haddaba loo qabo. Waxaariska wuxuu qofka ka dhaxlaa inuu maskaxda xor ka noqdo. Haddii aad u kuurgasho haddaba qaabka aan u fikirno, waxaad ogaanaysaa inaan nahay dad aad u colaadiya qofkii isku daya in fikrad cusub baadi goobo asigoo daboolaya baahida maskaxda. Tusaale ahaan wixii ka dambeeyey xilligii xornimada oo hadda laga joogo 65 sano, ma aysan dhicin in fikrad cusub oo xal u noqon karta dhibaatada ina haysata la baadi goobo. Sababta keliya ee suurtageli la'dahayna in la helo fikradna badbaadin lahayd ayaa ah inaynaan marnaba isku dayin in la barbaariyo maskaxdii u sahan tegi lahayd ee guryasamo u soo sahmin lahayd fikradaha aanu oomanahay. Buugga ayaa noqday saaxiibka ugu qaalisan nolosha casriga ah, waana saaxiibka keliya ee ka haqabtiri kara baahida maskaxda. Sidoo kale, buugga ayaa noqday weelka ugu fiican marka ay timaado cidlada markay timaado. Haddii aad si wanaagsan u saaxiibtaan buugga, waxaa hubanti ah in uu kugu abaalmarin doono fikrado noloshaada wax weyn ka beddela. Qaybta ugu daran ee Soomaalida haysata ma ahan oo keliya inaan nahay dad ku liita wax akhriska. Waxaaba laga yaabaa in la helo dad badan oo Afrikaan ah oo ku liita akhriska, balse qaybta aysan cid inala wadaagtaa ayaa ah inaan nahay dad keliya ee madaxdooda ama hogaamiyahoodu aysan waxba akhrin. Mar haddii siyaasiyiintii iyo madaxdii dalka aysan waxba akhrin, sidee loo filan karaa in dalku uu gaadho wax uun horumar ah? Malaha balwadda ugu fiican ayaa ah balwadda wax akhrinta. Waa balwadda keliya ee quudin karta maskaxdeenna. Maalmahan haddaba waxa soo shaac baxday balwad halis ah, taasoo ah inaynu isxamanno, sidoo kalena aynu muujino inaynu nahay dad adduunkan ka hadhay. Si kastay ahaataba, wax akhrisku waa muhiim. Waa waxa maanta badbaadin kara dalkeena. Inaan hore u soconana waxa inoo sababi karaya. Waayo ummad aan warba u haynin waxaan hareeraheeda ka dhacaya, isla markaasna aanan waxbaba ka waraynin waxba akhriyaynin, sidee ayaad uga filan kartaa inay gaadhaan horumar? Mar kastaba markii tusaalaan waxaynu nidhi hogaamiyaasha Soomaalidu waxba ma akhriyaan. Hogaamiye hadduuna waxba akhriyaynin, sidee ayuu ku ogaan karaa dalalka kale ee loolan kaga dhexeeyo? Waayo saynu ognahay adduunkan wax ka socna loolan tira beel ah. In ka badan 195 waddan ayaa ka jira adduunka. Dal kasta danihiisu ilaashanaya, taariikhdiisu ilaashanaya, laakiinse hogaamiyaha Soomaaliga ahi uu ka aradan yahay waxaasi oo dhan. Saynu ku filan karnaa markaas? Haddii ay madaxii hadduu xumaadayna, mijihii sidee baynu u filan karnaa inaynu u wanaagsanaato? Waayahay, waa su'aalo taagan waxaasi oo dhan. Si kastay ahaataba, ummadda Soomaaliyeed inay mar kasta dib u sii socoto waxaa ka dhigaya wacyi la'aanta aysan lahayn wax wacyi ah. Waayahay, intaas ayaan jeclaastay maanta inaan idinla wadaago, isla markaasna aan u arkayo qodob aad u muhiim ah. Haddii aad halkan nala soo gaadhay, waan ku hambalyeerayaa. Haddii aanad weli nagu soo biirin, nagu soo biiro kanaalka subscribe saaro, muuqaalkana like saaro.